asalaamu calaykum. waxaan imid waddanka China oon ku suganahay muddadii 7 cisho ugu dambeysay si aan uga samayno xarun fulfillment ah ama fulfillment ku samaysa productyada online laga iibsado ama dropshipping ha noqoto ama e-commerce ha noqoto ama productyo badan oo Europe iyo Mareykan iyo wadankii iyo meelo badan oo Afrika ka mid ah si aan u gaarsiino. insha Allah hadii la yiraahdo waxaan sababta u sameynaa daraadeedna waxaa ka mid ah qof kasta oo raba inuu dropshipping bilaabo oo dropshipping in a right way اللهم سعان oo supplier-kii saxday in loo helo in اللهم سعان alaabtii lala fulfill gareeyo in alaabtii lala diro اللهم سعان lala sameeyo ayaan insha Allah dira kala shaqeyn doonaa marka weekaga soo socda insha Allah hadii la yiraahdo ganacsi xarun ayaan ka furi doonaa wadankan China insha Allah hadii la yiraahdo intaan taa u guda gelin waxaan hadii la yiraahdo muuqaalkeena ku dul istaageynaa waa maxay dropshipping sidee ayuu shaqeeyaa labada muuqaal ee ugu daawashada badan leh in entire stream midna I think 150,000 oo qof daawaday mid kale Allahumma sa'an 200,000 oo qof ay ku dhow yahay Allahumma sa'an oo min laba saacadood ayaan ka sameeyay dropshipping iyo Shopify soo shaqeeya Allahumma sa'an muddadii labadii sano saddexdii sano afartii sano ugu dambeysay ayaan soo guda jiray soo dhow saaxiib hadii aad nagu cusub tahay waxaan ay warsan bade waxaan channelka soo waday muddadii sanawaadkii ugu dambeeyay waxaan sidoo kale sameeyay waxyaabo badan oo ka mid tahay Baraka Business Expo oo ah carwo ganacsiyeed weyn oo ka dhacday gobolka Minnesota ee Mareykanka oo soo keenay 300 oo ganacsi iyo 700 oo qof hall dhowr kilometer square ah ayaan soo keenay bishii tobnaad alxamdulillah si fiican baan ugu qabsantay business badan Allah musta'an kala shaqeeyay insha Allah hadii la yiraahdo muuqaalkeena maanta waxaanu ku dul istaagaynaa sidee ayuu dropshipping u shaqeeyaa sidee buu e-commerce business u shaqeeyaa culimada barkood baa qaba Allah musta'an inuu yahay xaraan hadii aan adigu product yahayn oo productgaas uu yahay mid online ku jira marka si aan waxyaabahaas oo dhan uga saarno meesha aan toos uga dhigno insha Allah hadii la yiraahdo waxaanu muuqaalkeena ku dul istaagaynaa waa maxay dropshipping sidee buu u shaqeeyaa sidee ayaad adiguna u bilaabi kartaa intaan hadda Europe iyo meelo badan oo kamid ah Allah musta'an adduunkan marayay walaalo badan baa i weydiiyay ugu dhaahdo warsama waxaan rabnaa inaan bilowno e-commerce waxaan rabnaa inaan bilowno dropshipping waxaan rabnaa inaan bilowno social media marketing waxaan rabnaa inaan online income iyo dakhli ka sameeyno waxaan rabnaa inaan xirfado barano waxaan rabnaa inaan ka baxno Allah musta'an shaqaalanimo oo noqono Allah musta'an dad isku tiirsan marka many ways baa jirta adduunka wax loo sameynayo waagii hore waxaan aaminsanaa in online kaliya wax laga sameeyaa laakiin intaan hadda business expo ka shaqeynaynay business badan oo aan online hayno laakiin millions of dollars sameynaya ayaan Allah musta'an aragnay marka it depend waxay ku xiran tahay qof walba saaqadiisa meeshii loo soo marnay laakiin qofkii inuu soo damacaya inuu dropshipping bilaabo ama business kan uu bilaabo in a right way Allah musta'an oo supplier-kii adigu aad ku toos Allah musta'an aad ku xirmaysid oo productyadii Allah musta'an xagan China laga soo check-gareynayo hadii noqoto diristii Allah musta'an lagu dirayo hadii noqoto site-kii Allah musta'an lagu sameeyay in a right way hadii aad qabda diinteena Allah musta'an waafaqsanayn u sameynayno one of the reason Allah musta'an aan u joojinay muuqaaladii la xiriiray tan waxay ahayd inaan marino wado Allah musta'an diinteena suuban raacaysa marka taas sameynaysid ku xirfadna waad baran doontaa oo xirfado badan weeyaan dropshipping isku dhex jira haddaad imika business caadi samaysanaysid waxaad u baahan tahay inaad products yeeshid finding inaad products shaqeynayo dadka ka iibsanayaan aad soo iibsid waxaad u baahan tahay Allah musta'an inaad website samaysatid waxaad u baahan tahay inaad marketing samaysid waxaad u baahan tahay Allah musta'an alaabtii dirtid waxaasoo dhan baad ku baranaysaa iyadoo ayna lacag ka bixin marka xirfadaha aad waa skills aad ka baranaysid dropshipping-ku waa xirfado kuu saamaxaya inaad lifetime isticmaashid dropshipping waa wixii saamaxay Allah musta'an inaan YouTube channel kan bilaabo oo wixii saamaxay Allah musta'an inaan marketing agency sameeyo oo wixii saamaxay Allah musta'an inaan software sameyn karayo oo wixii saamaxay Allah musta'an inaan sameyn karayo expos marka bilowga meesha ka bilaabaysid asaaska business aad ka sameynaysid inaan bajiro Allah musta'an maalin loo million sameeyay on channel ku soo gudbiyay magaciisa Cabdi baa la dhahaa Cabdi Abdulrahman Allah musta'an laptop business markuu bilaabay Allah musta'an dropshipping ku bilaabay because he gaining high value skills marka dropshipping baratid waxaad baranaysaa high value skills iyadoo lacag badan aanad khasaarin business ma hubo Allah musta'an loo oran karayo business kaasoo guarantee inaad
ku guuleysanaysid ilaahay idankii businesska ugu fiican muu noqdo real estate muu noqdo businessku faa'iido iyo khasaare buu leeyahay challenge iyo caqabado buu leeyahay allahumma sa'an ma jirto mid wada saxsan oo debri intaad bilowdid degdeg wax uga samaynaysid laakiin intaas buu wada leeyahay laakiin muxuu kaga businesskan kaga duwan yahay imika China nimiday allahumma sa'an hotel baan joogaa deeto waxaan galay musqusha markaan galay musqushoodu say u samaysan tahay iyo musqusha Mareykanku say u samaysan yihiin allahumma sa'an wadamada Mareykanka ama wadankiina ama meelaha kale noqoto way ka duwan tahay ama wadamada Carabta haday noqoto qaabkii u samaysan yihiin qaabkii kuwan u samaysan yihiin ka duwan tahay tan remote baa lagu xukumayaa biyay leedahay allahumma sa'an biya ka soo baxaya uma baahnid inaad caagad biya soo qaadatid waxay leedahay allahumma sa'an qalajisay leedahay waxay leedahay allahumma sa'an electronic marka productkan iibiyo oo Mareykan ka iibiyo اللهم استعان anigu wax kan China jooga marka uma baahni inaan productkii qaado oo allahum استعان Mareykan geeyo inaan website samaysto oo allahum استعان productkii xaysiid u sameeyo ayaa allahum استعان iga filan marka dropshippingku instead aad waxaad lacag gelin lahayd oo lacag ku eegi lahayd oo lacagti ka khasaari lahayd ama lacagti ku shaqeyn lahayd ay productku kugu fadhiisan lahaa waxay ku fududeynaysaa allahum استعان productkii si fudud allahum استعان aad ku diri karaysid marka muuqaalo badan baan kasoo sameeyay tutorial kuwa 2 saacadood soconaya kuwa 3 saacadood soconaya iyo kuwa 5 saacadood soconaya I think muuqaalo badan baa ku jira kursooyin dhaadheer baan kasoo diyaariyay YouTube kasoo geliyay waa aad u badan allahumma sa'an ay ka faa'iideysteen marka hadda rabtid allahumma sa'an inaad business bilowdid businessku labadaas buu leeyahay marka businesska waa business ku saamaxaya inaad productyada iibin kartid qasam ma allahumma sa'an product inaad qaadid oo Europe geysid ama wadankii geysid ama meel kale geysid waa product inaad qaadid allahumma sa'an businesskan ayuuna u shaqeynayn haddii aad wadankii joogtid allahumma sta'an inaad payment gateway haysatid bay noqonaysaa oo Shopify payment haysatid kuma shaqeynay allahumma sta'an paymentkaas inaad qof dibadda raadisid iyada allahumma sta'an adu Mareykanku wuxuu leeyahay inaad ka furan kartid state Delaware la dhahdo oo allahumma sta'an Mareykanka ku yaala inaad ka furan kartid ayuu ku samayn karaa Stripe oo kale ka samayn kartaa $500 waxyaabo saasay ka qaadeen laakiin business bay kaaga register gaynayaan Mareykanka inaad allahumma sta'an wax ka dhaxibin kartid businesskaas inuu online noqdo weyn laakiin waxaad haysanaysaa business registration businesskaas baad ku furan karaysaa allahumma sta'an kaar banki iyo allahumma sta'an aad ku samaysan karaysaa waa taas weyn inaad product soo heshid productkii aad website u samaysid website-kii aad xaysiis u samaysid xaysiiska markaad u samaysid alaabta laga iibsado marka xaysiisyada qaybo kala duwan baa loo sameeyo allahumma sta'an UGI baa jira organic baa jira allahumma sta'an content aad samaysid influencer content baa jira waxaa jira allahumma sta'an paid ads content paid ads marketing baa jira marka siyaabo kala duwan baa allahumma sta'an loogu sameeyaa marka taas baad allahumma sta'an ugu sameynaysaa marka ugu horeysa maxaa u baahan tahay inaad winning product soo heshid oo allahumma sta'an winning product soo heshid marka labaad waxaa u baahan tahay inaad product aad soo heshay aad website u samaysid allahumma sta'an inta badan Shopify baa la isticmaalaa si branding oo qurux badan allahumma sta'an muuqaalan ka soo samaysidayba website professional allahumma sta'an loo sameeyaa saddexaad allahumma sta'an sameynaysa waxa weeyaan inaad productkaas allahumma sta'an marketing u samaysid oo website-kaagii traffic dad keentid deeta marka dadka keentid inay website-kii ka iibsadaan alaabtii deeta taas baad samaynaysaa marka hadda waxaan sameeyey allahumma sta'an programkaas waa one-on-one coaching allahumma sta'an ayaan kula shaqeyn doonaa aniga teamkaygu productkii baan allahumma sta'an kula soo helaynaa website-kii baan kula sameynaynaa allahumma sta'an fulfillment-kii marka alaabtii lagu dirayo haddii noqoto supplier-kii xaggan China anaga u tagayna product waa laga soo jeegareynaya quality-giisa iyo wixiisi allahumma sta'an marka la dirayo ilaa allahumma sta'an product uu ka dirmayo oo meeshii ka gaarayo marka saas baan allahumma sta'an sameyn doonaa trayer oo dada oo kooban ayaan qaadan doonaa allahumma sta'an oo kala shaqeyn doono sidii allahumma sta'an ay u sameyn lahaayeen dropshipping business 2026 insha Allah hadii la yiraahdo in halal way oo allahumma sta'an supplier-kiina soo heli doonta soo heli doonta intiina kale ee ganacsiyada iskale ama wadankii jooga ama meelo kale jooga inshallah hadii la yiraahdo we will there's a lot of stuff inshallah hadii la yiraahdo soo socda wax badan baynu ku diristaagi doonaa dhammaantiin waxaan u baahanahay qof ina dhiirigeliya dhammaantiin waxaan u baahanahay qof ina challenge gareeya dhammaantiin waxaan u baahanahay qof inagu taageero waxyaabaha aynu rabno haddii aanaad adigu qofka helin adigu qof u noqo haddii aanaad adigu qofka helin adigu gaar ahaan naftaada u noqo intaan muuqaalku wuxuu kulmi doono dhammaantiin waxaan rajaynayaa guul iyo gobonimo